Ethical hacking. anshaxa jebinta. waxaan halkan uga hadli doonaa jebinta. Marka la yiraahdo anshaxa jebinta ethical hacking, wuxuu isku imaanayaa in laga hadlo qaabka jebinta iyo qaab barashada jebinta, noocyada jebinta iyo qaababka nidaamka ee saxda ah ee la ogol yahay in loo barto hacking-ka. Haddii aan isku dayno inaan qeexno ereyga hack, macnihiisu waa in shaqo adag loo qabtaa qaab fudud ama qaab nidaameed ay ku jirto wax yar oo fududayn ah. Kaasaa waxaa la yiraahdaa hack. Marka haddii system aad u adag aad isku dayd inaad jebisid, waa inaad keentaa farsamo jebin oo aad u fudud. Kaasaa waxaa lagu qeexi karaa marka hack. Ereyga hack asalaan wuxuu ka yimid in wax la jebiyo, weliba iyadoo loo adeegsanayo nidaam fududayn system adag loo mari karo. Hacking guud ahaan waxaa loola jeedaa magalitaan computer ama shabakad network iyadoo qofkii aan loo ogolayn oo uusan haysanin wax fasax ah. Nidaamkaas qofka sameeyo ama ku mashquulsan waxaa la yiraahdaa hacker. Hackerku inta badan wuxuu isku dayaa inuu helo macluumaadka shakhsiga ama macluumaadka shirkadeed, isagoo ugu dan leh inuu ogaado warbixintaas ama inuu hadhow kale lacag ama madax furasho ku weydiisto warbixinta uu haysto. Dunida maanta waxaa caan ka ah in qofka laga jabsado ciwaankiisa kadibna la weydiisto madax furasho, ama shirkadii warbixinteedii la qaato si loo faafiyo ama lagu xujeeyo lacag madax furasho ah, sida fayrasyadii ugu dambeeyay ee dunida soo wajahay sida ransomware iyo software kaloo la mid ah, kuwaasoo qofkii ku qasbaya inuu lacag bixiyo. Hacking waa isku day la doonaya in looga faa'iideysto nidaamka kombiyuutarka ama shabakad gaar loo leeyahay si loo helo xogta kombiyuutarka ku jirto. Marka si fudud loo qeexo ama loo dhigo, waa marin u helitaanka aan la ogolaan karin ama lagu xakameeyo nidaamka shabakadda shirkadda si kombiyuutarkaasi xogtiisii loo xado ama si sharci darro ah loogu isticmaalo. Kaas waxaa la yiraahdaa marka hacking. Qeexitaano badan ayaa jiro oo lagu qeexo hacking-ka. Marka intaas waa inta ugu macquulsan ee qeexitaano ah ee lagu qeexi karo wax loola jeedo hacking-ka. Waxaa macquul ah inaad isweydiinaysid waa maxay qoraaladan Soomaaliga ah. Qoraaladan waxay faa'iido u leeyihiin in ardayda ama dadka daneeya ethical hacking-ka si fudud ay u akhristaan haddii ay u baahdaan qeexitaanada dheeriga ah. Haddii aan ka bixino sharaxaad dheeri ah, in si wanaagsan loo sharaxo hackerska, qofku wuxuu u baahan yahay inuu marka hore fahmo shaqadooda. Qofku wuxuu si fudud ugu qaadan karaa inay yihiin hackerska kuwa caqli badan oo karti u leh isticmaalka kombiyuutarka. Xaqiiqdii, jebinta nidaamka nabadgelyada ee kombiyuutarka waxay u baahan tahay caqli iyo khibrad intaa ka badan oo aan dhab ahaan la abuurin. Ma jiraan xeerar adag oo dhaqso badan oo aan ugu kala saari karno hackerska qaybahooda mucjisada badan, balse qofka hacking-ka ah waa qof aad u caqli badan, sababtoo ah wuxuu raadinayaa hababka ama qaababka kala duwan ee loo gali karo amniga kombiyuutarka, isagoo raadinaya boosas ama daaqado ama qaanado ka mid ah systemkaas sida boortiyada, IP address-yada iyo qaybo kale ee aadka daciif u ah ee nidaamka shabakadaas. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan hackerska kombiyuutarada waxaan ugu yeernaa 3 magac oo kala ah koofi cad white hat hackers, koofi madow black hat hackers, iyo koofiyada cawlan grey hat hackers. Mid walba magaciisa wuxuu ka turjumayaa shaqadiisa. Haddii aan ugu horeyno white hat hackers, waa kuwa koofi casta ah, waana kuwa aan ahayn sharci darrada. Waa kuwa shirkadaha u shaqeeya ee loo yaqaano network security specialist ama security specialists. Waa kuwa ilaaliya hackerska kana ilaaliyo sistemyada shirkadaha waaweyn. Sababta loo shaqaaleysiiyo kuwani waa hackers, laakiin waxay ogyihiin hackerska meelaha ay kasoo gali karaan shirkadda ama nidaamka. Black hat hackers waa hackerska ugu
dambiyada adag. Sida grey hat hackers igane waa kuwa aan ahayn hackerska saxda ah ee wax jabsada iyo hackerska wax difaaca laakiin yaqaano hackinka, balse iyaga inta badan waxay soo ogaadaan hababka iyo nidaamyada loo jebin karo shirkadda kadibna waxay la socodsiiyaan shirkadda. Dhammaan noocyada jabsiga waxaa loo arkaa inay sharci darro ka yihiin dunida, waxaana leeyihiin ciqaabaad kala duwan oo aad u culus. Waxyaabaha la jabsaday ayaa sidoo kale loo tixraaci karaa waxqabadyo aan naxariis lahayn, taasoo qofka wax jabsanaya marka hore uu yahayba qof u socda aarsi ama tuugnimo. Qofkaasi inta badan wuxuu u socdaa inuu dhibaateeyo qof ama shirkad. Sidaas darteed, hackerska inta badan waxay leeyihiin ciqaabaad aad u culus, balse waxaa jiro hackers qaar oo la shaqaaleysiiyo si ay uga hortagaan hackerska kale. Waa mid halka Soomaalida ay ka tiraahdo tuug ma gaado. Sidaas darteed, dhammaan warbixinadan halkan aan ku xusnay waa warbixino ka hadlaya ethical hacking-ka, balse haddii aad u baahan tahay inaad baratid hacking-ka, waxaad u baahan tahay inaad yeelatid aragtiyo dheer iyo sidoo kale cilmi baaris aad u fog. Mar walba ma noqon kartid hacker, laakiin haddii aad dadaashid waxaad tahay hackers. Waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa hal farsame oo aan ahayn jibin balse ah hack. Tusaale, waxaan naqaanaa kombiyuutarradeen inay ku xiran yihiin password. Markaad bedelaysid password, waxaad u baahan tahay inaad gelisid passwordkii hore. Haddani waxaan ku tusi doonaa adigoon u baahnayn passwordkii hore inaad bedeshid passwordka kombiyuutarkaaga adigoo maraya farsamadan soo socoto. Waa tillaabooyin dhowr ah. Haddii aad qaadid, waxaad awood u leedahay in aad bedeshid passwordka kombiyuutarka qofka adigoon rabin ama adigoon helin passwordkiisii hore. Marka hore waxaad tagaysaa Windows key +R. Run command-ga waxaad ku qoraysaa computermanagement.mc. Kadib waxaad tagaysaa local user and groups. Kadib waxaad kasii tagaysaa user. Right click ayaad ku leedahay userka aad rabtid inaad password ka bedeshid ayaad right click ku leedahay. Waxaad leedahay set password. Passwordka ayaad gelinaysaa. Set password marka aad proceed ayaad leedahay passwordka ayaad gelinaysaa. Kadib waxaad leedahay done. Sidaas waxaad ku bedeshay passwordka Windows-ga. Kani waa qayb ka mid ah hacking-ka, balse waa nidaam farsamo oo aad u fudud, kaasoo kombiyuutarka mar haddii gacantaada uu soo galo isagoo passwordka ku xirnayn aad automatically u bedeli kartid passwordkiisii hore. Kala soco halkan dhammaan waxyaabaha tiknoolajiyadda ku saabsan. Haddii aad ku cusub tahay channel-kan, nala soco.